السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما نقيات يوتيوب ان سلامي عشان نحو كسابسين سيدي يوتيوب لعب وسمية انو جنالكيga aad u yaryahay shirkadaha isticmaalina waa shirkadaha partnership ayaa la dhahaa waxayna ka socdaan ee u dhaxeeyaan adiga iyo Google Adsense-ga sababtoo Google Adsense u dhaxeeyo waxay tahay ma awoodid adiga inaad subscribe badan haysatid ama janaalkaagu cusub yahay views-kaagana uu yaryahay sidaas darteed YouTube-ka haddii Google Adsense-ga ku xirtid wax laga bixin visa card address-kaaga box posto lagu soo diro warqadaha laakiin haddii aad ku xirtid shirkadahan kale Freedom waxay kugu sameynayaan iyo shirkadahan kale oo partnership-ka PayPal-ka ay lacagtaada kugu soo dirayaan si toos ah shirkadahan kale waa tijaabina ayadana waa shirkad aad wanaagsan inkastoo dadka badan Freedom-ka xariisay wali loo soo jawaabin laakiin kanna way sahlan tahay laakiin waxa ogaanaysaa iyagana shuruud laga baahan xitaa uu yaraan waa ina confuse channel-kaaga leeyahay kadibna waxaad xariisan kartaa wax copyright-na uusan lahayn kadibna marka application-ka xariisatid insha Allah binakan dadka badan aan wax xareynay waxa loogu soo jawaabay qaar isbuuc qaar maalmo qaar hadba nasiibkaaga kadib sida ugu xirleen aan ku tusayaa channel-ka magaciisana waxa la dhahaa scaleup ayaa la dhahaa .com marka aan bilowno markaas waxaad samaynaysaa browser-kaaga ayaad furnaysaa kadibna waxaad leedahay scaleup.com sidaan iyo kugu soo baxaya kadibna join now ayaad ku dhufanaysaa sidaan gudaha u galno kadibna waxaad leedahay apply with your time ayaad leedahay kadibna waxyar ayaad sugaysaa kadibna wuxuu ka cawsanayaa YouTube-kaaga si toos ah inuu xirmo u ogolaa wax dhibkaaga maana allow ayaa leedahay sidoo gudaha u galo gudaha soo galay xitaa warbixinta YouTube-kaaga dhameystiran ayuu qaadanayaa kadibna waxa leedahay magacaaga dhameystiran oo wax lagu soo dir lahadow kan waa un tijaabo ayaan ka wada laakiin asaasan kuma shaqeynayo Axmed Shafeec laakiin waa in ku tusay oo kaliya accept ayaan leeyahay accept kadibna apply now ayaan leeyahay kadibna waxa lagu sameeyaa email-kaaga tag ayaa lagu yiri you should receive confirmation email-kaaga ayaa lagu soo diray confirmation-ka gmail-kayga ayaan furayaa kadibna si automatic gmail-kayga markaan u galo wuxuu ii soo dirayaa email-ka confirmation number-ka kan markaa confirmation samaysid waxay tahay dalabkaagii waa la xareeyay ayaa lagu yiri laakiin ogolaashihi ayaa suganaysaa laakiin waxa ku soo baxay confirmation marka uu dhufto waxay tahay in application-ka dalbatay waa laga aqbalay laakiin waxa ku dhiman ogolaashaha in janaalkaaga lagu soo xiro waxaad kala ogaanaysaa janaalkaaga markii lagu xiro qaabka ay kugu soo dhexsanaa insha Allah bina kariim casharo soo socda ayaan tusayaa iyo lacagta laga shaqeeyay iyo qaabka wax u arki lahayd iyo sharaxaad badanba ugu yaraan video badan ayaa laga sameyn doonaa janaalka kadibna waad ku dhufanaysaa email-ka ayaa furaysaa kadibna ma email-ka markaa furtid waxa ku soo baxayo badhan weyn ayaa ku soo baxayo confirmation-ka kadib waxa la confirmation my application sidaas marka waxa lagu ogolaaday in dalabkaaga xareysay wixii jawaabna ay ka ku soo diri doona isla markii YouTube-ka ay la hadlaan warbixinta soo dhameeyaan waxay ku sii qaabka kugu soo bixi doonto oo ku soo doonaan insha Allah bina kariim dadka Freedom-ka la ogolaanay kan ay xariisan karaan waa sahlan tahay insha Allah bina kariim ka faa'iideysi wanaagsan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khairan.